السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada TICS Technology. maanta waxaan baran doonaa insha Allah waxa loo yaqaano pattern. casharkiinana markaa wuxuu noqon doonaa casharadii aynu hore usoo qaadan jirnay. weliba programka loo yaqaano Adobe Photoshop-ka waana markaa cashar iska basic ah. casharka maanta ayaan baran doonaa waxa loo yaqaano markaa saan hore usoo sheegnay waxa loo yaqaano pattern. haddii aan soo dhaweeyo tusaale ahaan kale shape-kan background-kiisa soo ka arkaysaa loogada TICS Technology waxa weeyaan soo noqonaysa background-ka dhammaystiran. marka si loo sameeyo waxa weeyaan shayga soo noqonaya ayaan ku baran doonaa. waxaan imanayaa meeshaan ku sameynayo tusaale ahaan tab-ka ku furan baan iman. waa inaan soo saaro waxa loo yaqaano markaa loogadan pattern-ka. loogadan markaa si aan pattern ahaan ugu soo darsado waxaan soo furanayaa waxa loo yaqaano file new 100 pixel xaggana 100. waxaan iska leeyahay markaa create. meesha looga taalo iman tusaale ahaan kale soo qaad لكن يدح كامل كنترول 0 احنا عرفنا حاجه سبيس بدون مقايسه حاجه سبيس راح زمان دونا لبان كدغنيا si waxweeyaan madhow space ka u kala baxayaan oo kale waxweeyaan aan u badan soo saaran karo space fiican bay isku jiraan laakiin marka hadaan san ku deeyno waxa laga yaabaa madhow in space bato marka kala labaan ka dhigan oo koobiyin agani soo dhig kana oo sii radhi sug haddii aad doonayso kooraskan oo faahfaahsan waxaad u heli karaysaa qaab online ah adigoo ku dhiganaya website-kayga tics.com sidoo kale waxaad ku heli karaysaa qaab offline ah oo haddii aad Hargeysa joogto aad noogu iman karto classeska aad halka ku dhiganayso ka faa'iideyso inagu celiya muuqaalka. inta markaa sameeyo waxaan tagay meesha laga yaqaan hadaba edit waxaan tagay meesha laga yaqaan define pattern waxaan ku leeyahay markaa pattern name-ka magacood soo bixin saacad logan bixin kan okay balay waxaan ku soo noqonayaa markaa hadaba project-kiga aan wadaya ama tab-kii furnaa tab-kii furan background-ka laftiisa waan siin karayaa laakiin waxaan ka doorbidayaa inaan siiyo wax loo yaqaano shape-kaas oo ah rectangle aan kana dhama dhigayo madhow wixii noqon karaa isaga inaan opaque gareeyo laakiin haddaan background-ka laftiisa opaque gareeyo background wax ka sii hooseeya ma jiro marka ima noqonaysaan baahna color baan siin tahay color waxaan iska siinayaa blue oo kale stroke ma baahni. inta markaan sameeyo waxaan imanaya hadaba rectangle-ka dushiisa waxaan leeyahay right click waxaan ka tagayaa meesha loo yaqaano blend options-ka waxaan dooranayaa kadibna pattern overlay. halkan waxay soo kale markaa waxa weeyaan loogadii imkaan soo sameeyay oo tan ah markaa click markaas iyada doorto background-kii waa ka options kale uu leeyahay waxa kamid ah blend mode-ka naad mas'uuliyadda opacity dan 100% ka dhigo loogada markaa color-kii ka hooseeya shape-ka aan markaa soo siino ah blue markayo hadii aan doonayna blue ka arko maxaan sameyn karaa opacity yaraynaya laakiin 100% ka dhigo wax color markayo angle-ka uu yaalo kala mas'uul uu yaalo kala dili kartaa akan pattern-ka saddexna ruusi jiray laakiin kan ay qostaa sameyn marka inta sameyn kartaa waxyaabo kale sameyn kartaa waxa kamid ah kan zero-giisa aan ku celiyo scale-ka shaygan waana weynin kartaa waana yareyn kartaa. marka si aan tan oo kale uga dhigno salaad blue-giina waan arkayaa waxaan soo kala arkayaa loogadiina waan arkayaa mina shay kale aan ku dul qori karaa halkan oo kale laakiin inta san tahay wixii lagu dul qoro iyo waxan isla falgeliyeen lama kala arkay markaas taa xilno waxaan sameynayaa halkan aan double click dib aan u noqon in opacity ma yareynaya 5 meelaha ka dhig balay marka haddii waxaan soo dhaweeyo waa laga dareemayaa loogada background ahaan inuu haysto soo noqonayso haddii wax ku dul qorsanaa waxa weeyaan wixii wada arki kartaa marka labadaba waxa ku lugu hay kan soo qaad agay soo dhig casharkana inta insha Allah ku joojin doonaa inta casharka ku kulmano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.